hay-adda maxalliga ee Somtrag oo wakiilka bisha cas ee Imaaraadka Carabta ayaa intii lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay si joogto ah u afurisaa boqolaal ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Burco. maraan maanta booqanay xarunta dadkaasi lagu afuriyo ee SOS waxay ahayd mid mashquul badan waxaana goobta ku sugnaa dadweyne tiro badan oo iyagu ka faa'iideysanaya afurkaasi. mas'uuliyiinta hay-adda Somtrag oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan afuriyaan boqolaal masaakiin ah sidoo kalena ay wadaan hawlo samafal oo kala duwan. Sheekh Maxamed Xaaji Cismaan iyo Sheekh Ibrahim ayaa ka hadlay munaasabada dadkaasi lagu afurinayay. نتقدم نحن هيئة سمترك للتطوير الإنساني بجزيل الشكر والتقدير لله تعالى ثم لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي قام ويقوم بتقديم موائد الإفطار السنوية في أرض الصومال للعام 1437 هجرية الموافق 2016 ميلادية. وبهذه المناسبة الكريمة نسأل الله عز وجل أن يتقبل من شعب الإمارات ما يقدمونه من عون إنساني عظيم لأشقائهم في أرض الصومال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaynu joognaa waa garoonka weynaa ee SOS halkaasoo aanu sanad kasta aynu ku bixinno afur dad tiradooda ay ku dhowdahay ilaa 800 dadkaas ayaa afuriso hay'adda bisha cas ay soo mariso Somtrag. waanu mahad celinaynaa caawimada ay caawinayso sanad kasta ee daa'imka waa ay soo marisay Somtrag. waxaanu mahad celinaynaa walaalkii Maxamed Cismaan oo had iyo jeer ku dadaalay inuu dadka jilicsan caawiyo hadday halkan tahay iyo hadday meelo kale tahay. waxay ka socotaa caawimadu meelo badan sida Bohol, Hargeysa, Ceel Helay, Ceeri Gaabo meelahaas ka baxdaa kulley afurku sanad kasta waa daa'im. waxa inta raacada cusbitaalka Manhal oo dhawaan geeyay caawimo uu geeyay khayr Allah siiyo. sidoo kale cusbitaal laga dhisayo Bohol oo hadda gacanta lagu hayo caawimadu waa daa'im sanad kasta waa soo koraysaa insha Allah taala. waana u mahad celinaa hay'adda bisha cas iyo Somtrag iyo wakiilka halkan jooga Maxamed Xaaji Cismaan khayr Allah siiyo. sidoo kale waxaa madashan ka hadlay taliyaha rugta booliska Maxamed Cali iyo Suldaan Cabdisalaam Maxamed Jaamac. halkan aynu joognaa waa goob ka mid ah xaafadda Maxamed Cali ee magaalada Burco. munaasabadan waxay ku saabsan tahay dadka sooman ee saayimiinta ah ayaa la afurinaya. waxaa afurinaya hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adda bisha cas ee Imaaraadka Carabta iyo wakiilkeeda hay'adda Somtrag Somaliland Burco. anaguna haddaanu nahay ciidanka nabadgelyada ee saldhigga Maxamed Cali ee booliiska waxaanu ku shaqaynaynaa amniga. anigoo Suldaan Cabdisalaam Maxamed Jaamac waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda bisha cas ee dadka ku afurisa xarunta SOS oo sanad walba ku afurisa ilaa 800 oo qof oo musaayimiina oo afur sooman. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hay-adda Somtrag ayaa iyadoo ah mid ka shaqaysa arrimaha khayriga waxaanay sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan wax siisaa kumanaan ka mid ah danyarta magaalada Burco iyadoo hay-addani ka shaqaysa magaalooyin kala duwan ee Somaliland. waa Bashiir Ibrahim Qayir Bulsha TV Burco.